إخواني أحبابي الصغار، أهلا فيكم أشرقت الأنوار، بالورد نحييكم وبكل الأزهار، أهلا فيكم أشرقت الأنوار. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. kulanti wacan kusoo dhawaada barnaamijkeenii qisasul qur'aan lilatfaal. qisadeenna maanta waxay ku saabsan tahay qisatu qaabiil wa haabiil. هيا نجلس مع كل الإخوان، نتسلى ونتعلم وتذوب الأحزان، نسمع قصة مفيدة على مر الأزمان، نتعلم وننشد مع كل الأطيار. markii nabi aadam calayhi salaam iyo ummuna xawaa ilaahay dhulka u soo dejiyey, wuxuu ilaahay kula dardaarmay in ay dhulka ku noolaadaan kuna camiraan daacada ilaahay, markastana ay ku toosnaadaan amarkiisa, ayna qaataan hanuunka ilaahay xaggiisa uga imaanaya. wuxuu kaloo ilaahay kula dardaarmay in ay iska ilaaliyaan shaydaanka iyo wasaawistiisa, kana fogaadaan, ayna ka taxadaraan in ayaga iyo ubadkooda uu shaydaanku ka leexiyo dariiqa wanaagsan. ilaahay nebi aadam iyo xawaa wuxuu siiyey ilmo badan, oo markastaba xawaa waxay dhali jirtay mataano, oo markastaba wiil iyo gabar ah ay dhali jirtay. ilmahooda waxaa ka mid ahaa wiil la dhihi jiray qaabiil iyo wiil la dhihi jiray haabiil. labadaa wiil ayaan maanta ka sheekeyn doonaa haddii ilaah yidhaahdo. labadooda waxaa la sheegay inuu weynaa qaabiil, wuxuuna ahaa qaabiil nin beeraley ah oo beer ayuu tacban jiray. haabiilna wuxuu ahaa nin xoololey ah oo ari ayuu raacan jiray. labadooda waxaa dhaqan wanaagsanaa. haabiil wuxuu ahaa nin baari ah, waalidkiisa baari u ah, ilaahay u hoggaansan, dhaqan wanaagsan ayuu ahaa. maalin maalmaha ka mid a ayaa nebi aadam calayhi salaam labadiisa wiil wuxuu ku yidhi qurbaan bixiya, oo ah wax hantidiina ka mid ah oo aad ilaahay ugu dhowaataan bixiya. waagaas marka qofku markuu wax la baxayo oo ilaahay rabo inuu ugu dhowaado, ma jirin dad masaakiin oo la siinayo. waxaa la samayn jiray meel bannaan ah ama buur dusheeda ayaa la saari jiray. dadkuna waagaa way garan jireen qofka wixii uu bixiyay haddii laga aqbalay iyo haddii kale. waxaa calaamad u ahayd in uu dab yimaado, uu dabkaasi qofkii wixiisii laga aqbalay in wixii uu baxsaday dabkii uu qaato ayaa dhici jirtay. markii labadii wiil saa lagu yiri oo la yidhi qurbaan bixiya, qaabiil wuu baxay, beertiisa ayuu tegey. dalagii beertiisa ka soo go-ay wixii ugu liitay qaar ka mid ah ayuu isku soo xiray ayuu keenay, ka ayuu bixiyey. haabiilna arigiisii ridii ugu fiicnayd, ugu helib badnayd, uu asaga ugu jeclaa ayuu keenay, taa ayuu qurbaan ka dhigay, uu bixiyey oo meeshii loogu talagala dhigay. markii ay labadoodaba qurbaankii la baxeen ayaa dabkii yimid, oo qurbaankii haabiil ayuu dabkii ku degay oo ka ayuu qaatay. taana waxay calaamadu noqotay in haabiil laga aqbalay, qaabiilna aan laga aqbalin. qaabiil aad ayuu u xanaaqay, waxuuna u adkeysan waayey in walaalkiis laga aqbalay oo isagana aan laga aqbalin, in walaalkiis uu ka khayr badan yahay ayuu u adkeysan waayey. oo markii hore wuxuu islahaa adiga ayaa weyn, adiga ayaa khayr badan, adiga ayaa aabbaha berito dhaxli doona oo noqon doona ninka reerka mas-uulka ka ah. laakiin maantay aabbihii wuxuu u jeedaa in labadiinii qurbaan aad bixiseen, asagiina laga aqbalay, adigiina aan laga aqbalin ayuu u jeedaa. oo markaasi waxaa soo caddaatay in haabiil uu kaa khayr badan yahay. arrintii ayuu u qaadan waayey, wuxuuna go'aansaday in uu walaalkiis dilo, uu ka takhaluso. markii uu go-aankaa qaatay qaabiil, wuxuu dhowr maalin raadinayay fursad uu walaalkiis ku dilo. maalin maalmaha ka mid ah ayaa haabiil wuxuu ku soo daahay meeshii uu ariga ku raacay. nebi aadam wuxuu ku yidhi qaabiil, bal orada walaalkaas oo fiiri maxaa ku dhacay.
qaabiil wuxuu is yiri fursadan ka faa'iidayso, maantay ayaad dili kartaa walaalka. wuxuu hore usii qaatay bir, waddadii ayuu qaaday, walaalkiis ayaa ka hor yimid. markaas ayuu istaajiyey, wuxuuna yidhi haabiilow aniga waan ku dilayaa, adiga qurbaanka ilaahay uu ka aqbalay, anigana laygama aqbalin. anigu ma adkaysan karo in la yidhaahdo haabiil baa kaa khayr badan. haabiil wuxuu ku yidhi ilaahay wuxuu wax ka aqbalaa dadka muttaqiinta ah. haddii aad rabtid in wax lagaa aqbalo, ilaahay ka cabso oo noqo qof ilaahay u hoggaansan si ilaahay wax kaaga aqbalo, ayuu ku yidhi. wuxuu kaloo ku yidhi haddii aad ii gacan qaaddo oo aad damacda inaad i disho, aniga kuu gacan qaadi maayo oo kuma dilayo, aniga ilaahay ayaan ka baqayaa. waxaa la sheegaa inuu haabiil awood u lahaa inuu walaalkii iska celiyo, laakiin waxaa la fool xumaatay, uunan jeclaysanin inuu walaalkii gacan u qaado. wuxuuna walaalkii uga digay xumaanta ay leedahay inuu qof walaalkiis dilo. wuxuu ku yidhi haddii aad i disho, dembigeyga iyo dembigaaga ayaad isku darsanaysaa, oo qofka daalimka ah adduunka dhexdiisa dadka ku dulmiya, maalinta qiyaamaha wanaaggiisii iyo xasanaadkiisii ayaa dadkii uu dulmiyey la siinayaa. haddii ay ku filnaan weyso, dembigoodii ayaa laga soo qaadayaa oo qofkii daalimka ahaa korka laga saarayaa, oo asaga ayaa lagu ciqaabayaa dembigoodii, maadaamuu adduunka dhexdiisa ku dulmiyey. qaabiil warkii muuna dhegaysanin, nasiixadii iyo digniintii iyo khayrkii walaalkiis uu u sheegay dheg jalaqu muuna siinin, balse gacantii ayuu u qaaday walaalkiis, birtii uu watay ayuu madaxa kaga dhuftay. markaas ayuu saa walaalkiis ku dilay. qaabab kala duwan ayaa la sheegaa inuu qaabiil u dilay walaalkiis. siday ahaataba, qaabiil walaalkiis oon waxba galabsanin ayuu gardaro ku dilay. taana wuxuu ku mutaystay in maalinkaa laga bilaabo ilaa uu adduunka ka dhammaanayo, qof kastoo qof dulmi ku dilaya inuu qaabiil dembigaas wax ku leeyahay, maadaama uu ahaa qofkii ugu horeeyey ee qof dila oo dulmina ku dila. markii uu walaalkiis dilay ayaa qaabiil tala gacantiis ka baxday, oo wax uu ku sameeyay ayuu garan waayey. dhabarka ayuu iska soo saartay. waxaa la sheegaa inuu dhowr maalin la wareegayey, uu garan la'aa wax uu ku sameeyay isuu yeelaba. isagoo aad u yaabanayaa, ilaahay wuxuu tusiyey tuke jiidaya tuka kale oo meeda. tukihii ayaa wuxuu sameeyey, dhulka ayuu qoday, kadibna tukihii meedka ahaa ayuu ku riday, kadibna caradii ayuu ku gadiyey. markuu intaa arkay ayuu qaabiil wuxuu yidhi ma tukahaasaan ka liitaa, uma anigana walaalkay god u qodo oon ku aaso. sidii ayuu sameeyey, god ayuu u qoday, godkii ayuu ku riday, kadib ayuu caradii ku gadiyey. halka ay sheekadii noogu dhammaatay, waxaan ka baranaynaa sheekadan dhowr arrimood oo ay ka mid tahay xumaanta ay leedahay in qof walaalkiis uu dulmiyo ama uu ku xadgudbo. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in qof haddii uu ilaahay dartii wax ula baxayo, ay habboon tahay inuu la baxo wax fiican, uusan la bixin wax liito, uusan naftiisa iyo ilmihiisa u quuri lahayn. waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa in xaasidnimadu ay tahay waxaanan fiicnayn oo aynan habboonayn in qof walaalkiis uu xasdo. haddii uu walaalkiis ilaahay nicmo siiyey, uu cilmi ama maal ama wax kale ilaahay siiyey, aysan fiicnayn inuu qofku ka xasdo ama uu xanaaqo ama uu dhibsado in qof walaalkiis uu ka fiican yahay. waad mahadsantihiin. la socda sheekooyinka soo socda. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين
فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين